بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan ba allaha awoodda la dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safmareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo arbaca sagaalka bisha disembar 2020 cudurka coronavirusku waa uu jiraa meelo badan oo dunida ka midana waa laga arkayaa dadka uu soo ridanaya ee dadka u dhimanaya iyadoo wararkii ugu dambeeyana ay sheegayaan meelaha qaarna talaalkii in la bilaabay meelaha qaarna in ogolaashihiisii kaabiga loo taagan yahay taas oo markaa noqonaysa in dagaal xoog leh oo ba'an lagu qaadi doono cudurka coronaviruska hal sano kadib markii uu dishay guud ahaanba dunida waddanka maraykanka markaynu ku bilowno sharikadaha lagu magacaabo Pfizer iyo BioNTech ayaa loo fadhiyey maalmihii ugu dambeeyey barnaamijkooda ah in la fiiriyo arrimaha ay diyaariyeen iyo tallaalada taasina waxa ay keentay hay'adda maraykanka ugu qaabilsan arrimaha cuntada iyo daawadu inay warbixin iyo qoraal ay soo saartay ay ku sheegeen in tallaalka labada shirkadooda isbahaystay ee Pfizer iyo BioNTech uu boqolkiiba 95 yahay mid waxtar leh oo markaasi ammaankiisa uu sugan yahay arrinkaasi oo la shaaciyay ayaa waxaa la sheegay in la eegay laakiin weli ogolaanshihii qalinka aan lagu doogin oo la filayo maalinta berri oo khamiisa marka ay fadhiistaan guddiga iyo la taliyayaasha arrimaha dhinaca maamulka xagga cunooyinka iyo weliba daawada maraykanku inay qalinka ku doogi doonaan oo ay ogolaan doonaan in xaalado degdeg ahaana loo adeegsado laguna bilaabo tallaalka Pfizer iyo BioNTech qoraalkan ay soo saareen hay-addaasi dhinaca daawooyinka iyo weliba cuntada ee maraykanku waxaa lagu sheegay in la hubiyey in tallaalku uu yahay mid quman oo markaasi waxtaraya marka la fiiriyo guud ahaanba laguna bilaabo bini'aadamka oo baahi gaara u qaba waxaa la sheegay in boqolkiiba 95 xagga ammaanka iyo dhinaca kaleba la eegay laakiin ogolaanshihiisu uu yahay midka soo socda islamarkaasina dhinaca kale la isweydiiyey su'aalo ah maxaa cillad ka iman kara marka dadka lagu tallaalo xaalkoodu siduu noqonayaa caafimaadkoodu siduu noqonayaa saamayn nooceeya ayuu dadka lagu arki karaya ama calaamado arrintaas waa laga jawaabay oo qoraalka ayay ku jirtaa markii ugu horreysay la soo saaray ee Pfizer iyo BioNTech oo waxaa la yidhi qofka marka la tallaalo waxyaabaha markiiba lagu arki karo waxaa ka mid ah xanuun qofka qabta waxaa kale oo la sheegay waxa loo yaqaano korguduud in qofka amaba dadka qaar korkooda uu guduudan karo midabku waxaa kale oo la sheegay tallaalkaasi marka lagu tallaalo in qofka meesha laga tallaalay ay barari karayso waxaa kaloo intaa lagu daray qofka lagu tallaalo ee Pfizer iyo BioNTech waa dadka qaar inay iska arki karaan madax xanuun iyo weliba murqaha oo xanuuna laakiin warbixintu waxay sheegaysaa intaas la sheegay oo dhan inaanay ahayn wax qofka ku daahaya oo muddo haynaya laakiin muddo kooban arrintaasi ay noqonayso waxaa daba la filayaa maamulayaasha iyo la taliyayaasha hay-adda dhinaca cuntada iyo daawooyinka ee maraykanku markay berrito oo khamiisa fadhiistaan inay qalinka ku duugi karaan kadibna si degdeg ah loo bilaabi karo in soo saaristiisa la badiyo kadibna la geeyo guud ahaanba gobollada waddanka maraykanka dalka UK ayaa ahaa dalkii ugu horreeyey ee markii ugu horreysay ogolaaday Pfizer iyo BioNTech arbacadii la soo dhaafay oo toddobaad laga joogo haddaba waddanka maraykanka marka la fiiriyo ayaa ninka isagu khabiirka sare oo lagu magacaabo Dr. Anthony Fauci waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay u muuqato in guul la gaari doono oo tallaalka la bilaabi doono laakiin laga rabo weli dadka maraykanku inay islaaliyaan oo ay feejignaadaan dhinaca kale madaxweynaha waddanka maraykanka ee la doortay Joe Biden ayaa waxa uu ka sheegay gobolka isagu uu ka soo jeeday ee Delaware in boqolka maalmood ee ugu horreysa marka uu xilka qabto uu arkayo in 100 milyan oo ruux laga tallaalo cudurka coronaviruska oo Amerikaana arrintaas ayaa waxa uu sheegay inay tahay hawshiisa ugu horreysa uu qabanayo laakiin waxa uu yidhi Mr. Biden taa macnaheedu maaha in cudurkii uu dhammaaday dagaalkiisii laakiin la sii wadayo qaabkii iyo sidii looga hortegi lahaa isagoo mar kale weydiistay guud ahaanba bulshada Amerikaanku in ay noqdaan kuwa sankii afka xirta oo feejignaada tan iyo inta arrimaha caafimaadka lagu dadaalayay iyo tallaalada waxaa kale oo Joe Biden uu shaaca ka qaaday in uu magacaabay xogayihiisa dhinaca caafimaadka ee xukuumaddiisa taas oo markaa uu noqonayo shakhsiga hore uu ahaa isagu dhinaca xeeralaaliyaha guud ee gobolka California ee waddanka maraykanka oo ay weliba ka soo jeedo haweeneyda iyadoo uu ka dhigtay madaxweyne ku-xigeenka ee Kamala Harris marka daba la fiiriyo Amerika xaaladeedu ma qumana xagga cudurka coronaviruska marka laga hadlayo oo dad aad u fara badan oo 15 milyan ka badan ayaa cudurku uu saameyn ku yeeshay iyadoo dadkuna uu markaasi cudurku uu dilana ay madaxa la gelayaan ilaa iyo 286,000 oo ruux waa waddanka Maraykanka haddii haddaba ay dhacdo maalinta berriya Pfizer iyo BioNTech in loo ogolaado oo qalinka ay ku duugaan hay-addan dhinaca cuntada iyo daawooyinku waxaa dhici doonta culays xoog leh inuu ka degi karayo guud ahaanba bulshada Maraykanka oo aad ula dhacaysay badashada dadka uu soo ridanayo iyo weliba dadka markaasi uga dhimanaya
UK marka la fiiriyo guud ahaanba maalinimadii shalay ayaa laga bilaabay cudurka coronaviruska talaalkiisa waa markii ugu horreysay waxaana lagu bilaabay dadka waayeelka ah iyo dadka kale ee iyagu ka howlgala amaba ka shaqeeya arrimaha caafimaadka konton isbitaal oo ku yaala guud ahaanba UK ayaa loo qorsheeyay arrintaasi in laga bilaabo taasoo si aad loo ammaanay markii ugu horreysay ee la bilaabay haweeney ayeeye ah oo lagu magacaabo Margaret Cannon oo 91 sano jiri doonta toddobaadka soo socda ayaa ahayd shakhsigii ugu horreeyay ee qaata talaalka cudurka coronaviruska adduunyada ebid waxay sheegtay inay si aad ugu faraxsan tahay Margaret Cannon in iyada oo u dabaaldegaysa sanad guuradii 91aad ee ka soo wareegtay dhalashadeedii ay markaas hadiyad ahaan u heshay talaalkii ugu horreeyay cudurka coronaviruska u aragto inuu wax u tari doono UK marka la fiiriyo dadaaladii ay wadeen ayay bilaabeen iyadoo guud ahaanba kumanaan ruux talaalkooda laga bilaabay maalintii shalay guud ahaanba UK marka la fiiriyo ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu tagay goob ka mid ah goobaha isbitaalada dadka lagu talaaliyay waxaana uu sheegay inuu hambalyeeyo isagoo yiri qof kasta oo istalaala waxay waxtar u leedahay qofka laftiisa iyo guud ahaanba wadanka UK wasiiradda koobaad ee Scotland ayaa iyaduna ka hadashay arrinta talaalka waxaana ay sheegtay arrintan inay bilow u tahay in dhammaanteen aan si quman oo runa aanu u dhoolla cadeyno laakiin maxaana la ka rabaa hay tiri dhoolla cadeyntaas inaan joogtayno taasoo macnaheedu uu yahay inaanu is ilaalino marka daba la fiiriyo UK barnaamijka ka bilowday ee ah barnaamijka wadanka ugu horeeyay ee talaalka lagu bilaabo Pfizer iyo waliba BioNTech ayaa waxay u muuqataa dadku inay aad u soo dhaweynayaan waxaana lagu bilaabay marka la fiiriyo dadka iyagu 80aadka ka weyn dadka iyagu 70aadka ka weyn iyo dadka 65 ka weyn iyo waliba dadka kale ee guryaha ku jira dadka lagu hayo iyo guud ahaan boqolyaha caafimaadka taas oo la eegayo kadib dadku siday u kala horeyn doonaan arrintaasina ay dawladda iyo qaybteeda caafimaadku ay shaqo ku leedahay marka daba la fiiriyo xogayaha caafimaadka ee UK Matt Hancock ayaa ammaanay barnaamijka talaalka bilowgiisa oo sheegay oona yiri waa guul la doonayo in la xajisto marka daba la fiiriyo guud ahaanba UK 24 saac ugu dambeeyay waxaa laga arkay dadka cudurku uu saameynta ku yeeshay oo coronaviruska talaalkiisa la bilaabay 12,282 ruux dadka ilaa 24 saac ugu dambeeyay UK cudurka uga dhintana waa 616 ruux taasoo tirada guud ee UK cudurka uga dhimatay ka dhigaysa 62,033 qof dhinaca kale shirkadda lagu magacaabo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford oo waday barnaamijka diyaarinta talaalka cudurka coronaviruska ayaa warbixin la soo saaray waxa ay sheegtay in talaalkooda la arkay oo la hubiyay inuu yahay mid waxtar leh arrintan ayaa waxa ay guul u tahay war wanaagsan guud ahaanba bulshada UK iyo caalamka mar haddii shirkaddan ay noqonayso shirkaddii saddexaad ee iyaduna ka dhawaajisay guud ahaanba in lagu guuleystay talaalka oo 95% uu yahay mid isagoo waxtar leh oo wanaagsan waxa ay doonayaan inay soo saaraan malaayiin iyagu doos oo talaala oo la doonayo guud ahaanba UK iyo adduunyada in loo qaybiyo ninka isagu gudoomiye ku-xigeenka ka ah shirkadda lagu magacaabo AstraZeneca Sir Mene Pandalos ayaa waxa uu sheegay inay arrintan ay guul tahay oo qof kasta oo da' amaba qof kasta oo weyn oo qaangaari laga rabo buu yiri in uu istalaalo si waxyeello loo gaarsiiyo cudurkan coronaviruska ee dhibaatada iyo saameynta xoogga leh ku yeeshay adduunka AstraZeneca iyo Oxford ayaa talaalkooda marka qalinka lagu duugaa waxa uu noqonayaa talaalka ugu raqiisan marka la fiiriyo talaalada shirkadaha kale ay soo saareen sida Moderna iyo Pfizer iyo waliba BioNTech taas oo la filayo waliba qaabka qaboojintana inuu ka sahlanaan doono oo talaalkan AstraZeneca iyo Oxford uu noqon doono mid quman oo ka fudud dhinac walbaba marka daba la fiiriyo guud ahaanba yidadiilo xoog leh ayaa ka muuqanaysa dunida oo dhan xagga cudurka coronaviruska iyo la dagaalankiisa mar haddii shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ay UK ogolaatay Americana la filayo berrito oo khamiis inay ogolaadaan Modernana ilaa iyo 17 bisha xagga Mareykanka laga ogolaado Oxford iyo AstraZeneca si degdeg ah loo ogolaado dhammaantoodna la sheegay in la hubiyo waxtarkooda inay noqon doonto dagaal ba'an oo xoog leh oo lagu qaaday cudurka coronaviruska oo dadka markaas talaalku uu ka difaacayo oo waliba ay dhici karayso sida ay sheegeen in talaalka laftiisu uu noqdo mid markaas joojiya dadku inay cudurka isu gudbiyaan mar guud ahaanba saynisyahanada iyo dhaqaatiirta la weydiiyey guud ahaanba talaaladu inay si joogta u joojin doonaan cudurka coronaviruska jawaabta ayaa waxaa la yidhi maya laakiin talaalku waxa uu ka qayb yahay dadaalka la wado oo ah in cudurkan coronaviruska xawliga uu ku socdo ku faafiyo marka hore la hakiyo oo maaro loo helo kadibna markaa si aada loola tacaalo laakiin saynisyahanadu waxay ka dhawaajinayaan inuu u eg yahay cudur weligii jiraya sida hergebka oo kale oo ay tahay dadku inay rabaayad ka dhigtaan oo ay islaaliyaan
waxaana daba eegi doonaa guud ahaanba ogolaanshaha kala duwan iyo diyaarinta tallaaladu iyo siday waxtar u yeeshaan iyo guud ahaanba bulshada caalamku siday uga faa'iido marka haddaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronaviruska waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leighton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badino nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah